عسى magacayga waxaa la yidhaha xasan cabdi ismaaciil ayaa la yidhaah أي midkeena kolley waxaa laga yaabaa horta shaqada marka u horeysaba inay fooqyaha u koreysaban inay fuulaan bay yaa ku dadaalnaa صح laakiin shaqada waxaa laga soo bilaaba xagga hoose yaa laga soo bilaaba صح shaqada yar baana lagu gaadhaa shaqada weyn صح maasha allah alxamdulilah inkastoo raasamaalku uu nagu yaryahay oo haddii aan helo shaqooyin badan aan laga yaabo inaanu meesha ka soo saari lahay ciyaal 10 ah baan iminka ku beelinaa shaqada 10 عيال 10 ciyaal ما شاء الله ayaan ku beelinaa صح maasha allah waan ka helaa waxaa laga yaabaa dhalinyaro iminka anaga naga sii xoog badan inay ay shaxaad ku raadiyaan kaarka moobalka inay ku raadiyaan baa suuragala صح yaa أكبر وحيابدي سنوغا فالله waa ka falada waxa weye sijaayidaha macawsaha tusbaxyada weeye waxaa liibiyaa كرقات تصبح بلا لكن أي sijaayidaha iyo macausjaayidii waa kuwan tunka ii saaran tusbaxyadiina waa kuwan macawsihii ayaan liibinaa insha allah maxaa kala wadaa marmar bacda maxaa ku jira marmar waxa ku jira waa macawsaha qayb ah yaa ku jirta صح way go'an yihiin laakiin koofiyadahana marmar baan ku soo darnaa صح waa shaygii cibaadada inta u badan waayahay imise sanaad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa 2 sano 2 sano toos 2 sanaan ka shaqeeyaa waayahay maxaad ku dooratay shaqada shaqada waxaan ku doortay qayb marka hore waxaan ka shaqayn jiray qaybta dhiseenka haya qaybtii dhiseenka waa kulley waa iska dabaan tahay nin weyn oo aroor kasta de iska kiraysan oo ruux bilaadan u kiraysan صح waa shaqo iska baabulahaya haya shaqada baabulahayda kulley ilaahay uu noo guuleeyaa biilka waan ka soo ilaa mar walba waana ikhtiyaari oo saacada doonto waad iska seexanaysaa masaajidinta iska fadhiisanaysaa صح saacadii kalena waad soconaysaa waad iska shaqaysanaysaa waayahay insha allahu wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ninka inta uu macnaha bilaadan hor joogsan lahaa wejigiisa oo wax bari lahaa isaga oo xaabad degta ku soo qaada baa uga khayr badan marka waxaan ku dadaalaynaa tacabka oo xalaala inaan xoogsanno oo shaqaysano oo ciyaalka ku biilna insha allah ilaahayna waa nagu bilay waan ku fiicnaa alxamdulilah ma sha allah waayo eega marka shaqadan aad labada sano 10 ciyaaraad ku biilaysaa biilkan si fiican baad uga heshay insha allah waayo socod baad ku iibsaa soo ma ha socod waa wareeg waa dukaanka wareegaa la yidhaha way magaalada jijiga ma area ama macnaha dhinac kuu cayiman baa jirta mise maalinba dhinaca doonta insha allah may qaybta berigii hore dhan walba waanu bixi jiray laakiin iminka qaybta ay caban waa qaybta kaylaha herar baan aroortii suuqaan ka soo bilaabaa waxaan gaadhaa xagga hore waan soo noqdaa haddana xaggii suuqa ilaa casarka usooyna luqun intaa meerad kastaad ku leexdo meerad kasta iyo meel kastoo lagu shaaciyey iyo meel kastoo dadkeeni joogaan kolley waan tagnaa meelahaas wax laga iibsadaa inta badan sax hadday bareefa tahay hadday meel maqaaxiya ashi lagu shaaciye ay tahay meel kasta waan marnaa alxamdulilah markaa biilka waan ka helaa waan ku fiicnay alxamdulilah alaabta kolka raxayd soo gadaa qayb wajaalan ka keenaa tusbaxyada oo kale wajaalan ka soo qaada qaybtan kalena meel halka suuq oo hoosta aaba jilmad ahaan kaga sii qaadan ma adaa doonaa ha anaa wajaalan taga wajaalan adaa u dalan qaybta tusbaxyada anaa taga wajaalan aniga kasoo yihiin wadada la soo maray wadada la soo maray waa caadi صح ان شاء الله saas weeyaan labada qaybood ee qaybna halkan aan ka sii waaye labadaas sano ee shaqada haysa waxyaabihii ugu badnaa la kulanta maxaa ka mid insha allah horta khayr ma la kulantay صح wax dhibaato ah kalama aanan ku dimin insha allah deegaanku waa iska fiican yahay waa iska furi wax dhiba kalama khayr ma kala kulantay insha allah waaye rajeynaysaa marka insha allah waxaan rajeynayaa inaan uga sii gudbo kor insha allah oo shay macnaha shay kor aan uga sii dalacna insha allah saynu fooqa uga kisanayna ya kor inaan uga sii dalacna insha allah rajeysanay صح way eeg wareeg baad ku iibsaa laakiin qorshaaga xiga qorshaha waxa ay firtay inaan meel fadhiisto marka wuxuugaa aan helo iminka meesha aan ku fadhiisto inaan meelaha aan meherad insha allah ka dhigo fadhiista yaa ay qorshaysan insha allah haddii la yidhaahdo haddii alla yidhaahdo insha allah xagga rabbi haddii ka noqoto haddii kalena in la sano ku wado sidan haddii ka wadna intaynu gaarina maqsadka way wax halka kaa daawanaysa bulshada dhan baa ku daawanaysa oo muslimiina muxsiniin ah bal dadka maxaad maanta haddii la yidhahdo wax ka codso maxaad codsan lahayd waxaan codsan lahaa horta bal dadka macnaha ku hamoonaya itaalku ka liito horta bulshada waxay sahay inay u naxariistaan oo macnaha mooraal geliyaan waan ku codsanaynaa horta صح moraal geliyaa bulshada waxayso wax dadka wax tabaalayn karta baamushirka iyaga oo waxbaan hayn hanqalka la soo kacay baamushir u diyaar garoobay bulshada waxayso waxaan odhan lahaa horta dadka hanqalka la soo kacay
ha xasuusnaadaan oo dadkoodaas inay wax ku kordhiyaan ay dadka moraal geliyaan ha isku dayaan baan odhan lahaa kuwa fadhiya waxaan odhan lahaa fadhiga ha iskaga kacaan ha shaqaystaan maxaa wax lagu gaadhaa waa shaqada fadhiga waxba kuma yimaadaan yaa waxay soomaalida ku mahmaan haydha caajis baan ka horreeya kaad caajisteed meel u fadhiisato dee waxba kuguma imanayaan صح yaa ايوه dadka waxaan ku moraal gelin lahay inay shaqaystaan oo waxyarada inayna la cabsanin waxa yar baa wax weyn ugu qacay inay shaqaystaan ma waxaan hayn bulshada waxaysana waxaa dadkooda yaryar iyaga oo waxba haynin moraal la soo qaahay halka inay baacmusaraan inay iska rab taagaan baan ku boorinaynaa dadka waxaysta هذا المصدر